dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ayaa maanta isku soo dhiibay ciidamada nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo 3 dagaalame kala howlgali jiray qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. dagaalamayaashan ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Cali Cabdulaahi Xasan Maxamed iyo Axmed Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsan ururka shabaab. dagaalamayaashan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen sababta ku kaliftay inay isaga soo baxaan ururka shabaab oo ay isku soo dhiibaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan Jowhar. magacayga waa Axmed Cabdulaahi Maxamed oo ka soo goostay argagixisada dawladda lagu magacaabo aadaya wal ka soo goostay waxaan isku soo dhiibay ciidamada dawladda nabad sugidda Jowhar waa lagu soo dhaweeyay aad iyo aad wax dhibaato leh ma geysanin waxaan u dulqaaday waayay falalka ayaga bulshada ay ugu dhaqmayaan falalkaas u dulqaaday waayay. bismillaah magacaygu waa Cabdulaahi Xasan Maxamed oo ka soo goostay kooxda argagixisada marka maadaama aan soo goostay waxay soo dhaweeyeen ciidamada dawladda ay soo dhaweeyeen oo nabad sugidda kamid ah ay soo dhaweeyeen sidoo kale maadaama aan arki waayay dulqaaday waayay sidii bulshada ay ku dhaqmayeen kooxda argagixisada sidaas ayaa macnaha aga soo goostay bulshada ku dhaqmayeen. magacaygu waa Cali Cabdulaahi oo ka tirsanaa ururka al-shabaab oo haddana ka soo goostay ciidamada dawladda Soomaaliya qaas ahaan nabad sugidda. alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan rafaad badan iyo dhib badan ee muddo shacabka Soomaaliya u geysanayaan ku arkay saas awgeed muddo go'aan u gaarin ka goosto saas ay dawladda Soomaaliya isku dhiibay waan isoo dhaweeyeen gacan wanaagsan iyo wajhi furan soo dhaweys macaan walaalay hadda kuma qan waxa lee ka soo taga walaaliin inta soo galay tulkiina والله إلى بلد حاو إلى قول كجدو ما لبنا يكسر قل إلى جبونك أكسر قل مدة لح بلد عمل جبوسه بدل قول كشبه دحق سان بصرة صعد كانت إسكسر ديبي علم الدول الصومالي نصير إسكسر ديبي الحمد لله باكم ما تصير ليسود ديبي عون أكسن يوجد فرصة قرابي ولا عليه صار حق هذا نحيي على سوا مجران تليها نبض سجدة دقمة جوهر علي حسن محمود علي ديرة ayaa ugu baaqay dhalinyarada ka barbar dagaalamaysa ururka al-shabaab sidaas la mid ah inay isku soo dhiibaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. arhim wiilashan waxay ahaayeen wiilal al-shabaab hor ugu beeray fahmay inaysan maxaa ahaay ay waxa al-shabaabku ay wadaan aysan diinahayn ay la qalday waa fahmeen qaladkii waa ka soo goosteen waa noo yimideen waana soo xiriireen xiriira ilaa waxa ahaay ila wareediyaan xiriir la soo banay waa waxa ahaay ka soo goosteen waana soo dhaweynay waana noo yimideen honunko iska kaasheen ciidamada qaybaha hore kala duwan aan iska kaasheen arintaas hadda sa gacantaanay waxa ahaay ku soo hormareen waana waxa ahaay waxay garteen qaladka ummadda Soomaaliyeed maxaa ahay dhiigooda iyo dheeftoodaba maxaa ahay lagu boobayo maxaa ahay dheeftoorana lagu boobayo dhiigoorana lagu daadaayay garteen waa uga mahad celiynaa kuwa wali jirana waxaan ugu baaqaynaa in iyaguna isa soo dhiibaan. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore sidaas la mid ah waxa ay sheegtay in dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ay isku soo dhiibeen kuwaasi oo ay sheegtay in ay dhagar badan kala kulmeen ururka al-shabaab. mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo bil ah. inoogu shub marka la dhamays waa maxay dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn ma heli karaa mid gashubo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig 444 afar gees.